بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة الكسر دوادا ورئيس الجارة وأنا لي لأن إنه قدومية حزب شعب الصوماليات مدني عبد الرحمن سليمان الجامع مدني قدومي كسر تلفزيون RTN وأنا كمان معدلين لوقت جا إنه صورته بل حكوا رنتا بل حزب شعب الصوماليات هلا برشلوها بسم الله ما ستة ولا كين تي في RTN سودو هذا كمان فرق سودو هذا بسم الله waxaan aad ugu faraxsanahay wareysiga maanta ila yeelateen xafiiskayga inta markaan ka gudbo xisbiga shacabka Soomaaliyeed ee aan gudoomiyaha ka ahay runtii waa xisbi kamid ah xisbiyada dhowr iyo tobanka xisbi ee diiwaan gashan shahaadada ku meel gaarka haysta isuna diyaarinaya inay noqdaan xisbiyada la doonayo inay noqdaan xisbiyada ka qayb gali doona doorashada haddii alla idmo foodo inagu soo haysa runtii xisbiga shacabka Soomaaliyeed waa xisbi ka turjumaya magaca ummadda iyo shacabka Soomaaliyeed waa xisbi runtii u diyaarsan inuu ka qayb qaato xaaladda siyaasadeed waddanku marayo runtii xisbiga shacabka Soomaaliyeed waa xisbi ka turjumaya sidii shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed iyo mataqaana baahida loo qabo in la helo xisbi ka turjumaya bulshada kana saari kara xaaladda maanta dalka ku jiro marka waxaan rajaynaynaa oo xisbiga shacabka Soomaaliyeed aan rajaynaynaa inaanu ka qayb qaadan doono isbedelka waddanka ka socda iyo horumarada waddanka ka socda waxaan rajaynaynaa inaan loolanka siyaasadeed ee electionka doorashadan aan qayb ka noqono haddii la yiraahdo annagoo runtii wax badan kaga duwan siyaasiyiinta hore iyo xisbiyo badan oo jiraba marka insha Allah kulli waa maadaama nidaamka xisbiyada waddanka cusub yahay oo dadkii shacabka way bilow tahay waxaan rajaynaynaa inaan noqono horseedka dimuqraadiyadda insha Allah watahay dhawaan madaxweynaha Soomaaliya wuxuu saxiixay sharciga doorashooyinka qaranka marka xisabta siyaasadda committee marka sidee u aragtaan waa maasada walaalkii runtii sharciga doorashooyinka ee la ansixiyay madaxweynuhu saxiixay dood badan baan ka sameynay oo TV-yada iyo saxaafadda ayaan la wadaagnay sharcigan in badan buu soo jiitamayay ilaa 2018 ilaa 2019 waanu fadhinay talaan ugu fadhinay sharcigaas xisbiyada iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo mataqaana baarlamaankii kulli anagoo mataqaana kulligeen mataqaana gudiyo ka kala socday sharciga waanu shaqaynay wax badan baanu ka bedelay waxyaabihii aan ka bedelay oo anaga iyo xukuumaddu waagi wasiiradu ay ansixinayeen sharciga aanu ka bedelay wax ka gedisan baa gudigii baarlamaanka madaxweynuhu oo gudoomiyaha baarlamaanka uu saaray ay dadka sharciga dib u bedelaan intay waddan shisheeye la aadeen bay wax badan sharciga ka soo bedeleen anaga waxaan isla nidaamka 4.5 waddanka laga saaro dalka cadaalada loo horseedo laakiin waxa dhacday dalkii wali 4.5 iyo nidaamka qabiilka wali dalka dib loogu socday nidaam BR ah oo close list la yiraahdo oo liiska xidhana ayaan waxaan rabnay inaanu electionka lagu galo doorashooyinka xisbiyadu ay ku galaan sharcigaas oo isteediyada maamul goboleedyada iyo dawladda federaalku ay baydhaba ay ku saxeexeen heshiis ku gaadheen in nidaamka BR-ka la qaato electionka 21 iyo 2022 dalka doorashada la galaya ay noqoto liiska xidhan doorasho ah laakiin doorashadii waxaa naga afduubtay gudigii baarlamaanka loo xilsaaray sharciga oo soo jeediyay in kursigii qabiil uu yeesho haddana xisbi doorasho lagu galo haddana qof iyo cod ay dhacdo waxyaabaha aan iskeeni karin ama aan isqaban karin marka runtii madaxweynuhu maanta dhaweed waad dhageysanayseen fikirkan wadanay buu ahaa ayna asxaabta ahaa nidaamka BR-ka inuu nidaamkaas electionka lagu galo wuxuu yiri waa laga guuleystay madaxweynuhu yiriyo waana laga awood batay marka waxaad moodaa wali waddanka waxa rabnay in dalka laga saaro in wali dalka ay xildhibaanada hadda joogay ay dalka wali rabaan nidaam qabiil lagu sii jiro oo dalka xal u ahayn waddankan in badan dhowr iyo 20 sano waddanka cadaalad darro iyo buruur waddanka soo baxa marka waxaan leeyahay runtii annagu ka xisbiyahan waan u diyaarsanahay nooc walba doorasho loo galaba waan u diyaarsanahay diyaarna waan u nahay inaanu ka qayb qaadano ka qayb galno walow hadda aan wadnay nidaam petition ah oo shacabkan cod ka raadinayna aan islahayn sharciga wax ka bedel hadii lagu sameyn karo in sharciga laga bedelo aan uga daba tagno sharciga marka waxa sharci dastuurka qodob dastuuriya wuxuu awood nagu siinaya hadii 10 kun oo qof oo shacab ah Soomaaliyeed la helo in sharciga dibigis lagu sameyn karo 1 milyan hadii la yeelanayo sharciga aan wax ka bedel ku sameyn karno marka hadda waxaanu diyaarinaynay dadkii inaanu diiwaangelinta wada shuruud waan soo buuxinay koowaad mid labaad waxaan rabnay inaan buuxino si toos ah annaga civil society iyo xisbiyada iyo ururada bulshada annaga wada soconana
inaan maxkamadda sare u gudbino kiiskaas baanu hadda qorshahaasaan wadnay laakiin aragti ahaan nidaamkan hadda la qaatay nidaam ummadda iyo shacabka Soomaaliyeed qarnimada Soomaaliyeed anfacaysa ama mustaqbal iyo dan ugu jirto run ahaantii ma aha laakiin wax kale oo aan samayn karnaa ma jirino nidaam dawladda 3 sano shaqeynaysa in hadda sanadka ugu dambeeyay doorasho laga doodo iyada laftigeeda waxay tahay wax aan aad loo baahnay in maanta xilligan doorasho laga murmo ay mar hore xalkeeda iyo mataqaana go'aankeeda la gaaro oo si nidaamka doorasho dhacaysa la sii cadeeyo walow hadda wali sharciga maadaama madaxweynaha ansixiyay haddana waxaa jirta oo dadku is weydiinayaan oo sidee doorasho qof iyo cod ku dhacaysa sidee doorasho noocaas loo aadi karaa marka runtii iyadana guddiga doorashooyinka qorshe ay wadeen baa qorshe aad u fiicnaa aha in ummadda Soomaaliyeed 3 milyan dad ah intii laga soo aruuriyo 3 milyan la diiwaan geliyo 3 milyanna ay soo doortaan labada aqal kadibna xisbigii ugu aqlabiyada batana madaxweynaha ay soo dhisaan xukuumadana labada xisbi isku dhow ay mataqaana ku wadeeshiyaan soo dhisaan marka taas aan noogu yar macquulsanay oo hadii taas aan maanta hirgelin lahayn waa noo fududaan lahayd electionada dambe 24 ilaa 20 doorasho markaas qof walba umad Soomaaliyeed codeyn karo waa noo fududaan lahayd laakiin waxaad moodaa nidaamka 4.5 ka iyo dimuqraadiyadda oo aan isqaadanayn in ummadii wili mataqaana lagu khalkhalgelinayo marka waxaan aaminsanahay doorashadaas inay dhici karto nidaam kasta loo dhigana in anagu ka xisbiyahan aan diyaar u nahay waata shacabka iyo siyaasiyiinta qaarkood waxay leeyihiin shaki ka muujinaya in doorasho qof cod ay dhacdo marka adinka xisbi ahaan shaki ma ka qabtaan in doorasho qof cod ay dhici karto waa mahadsan tahay walaalkay runtii anaga shaki in doorasho dhici karin naguma jirto waxaysan noogu jirin waxa waaye dawladdan hadda jirtay xoog kuma imaan mataqaana la iska mana dooran nidaam iyo sharci iyo dastuur bay ku yimaadeen teeran kooduna waqti go'an madaxweynaha waa go'an yahay marka xilligooda waqtigooda ay gaadho baa la oran karaa warmarkii doorasho ma qaban dawladii iyo way qabatay laakiin anagu ka xisbi ahaan ama hadaan xisbiyada wadanka jiraan shahaadooyinku meel gaar ah qaadanay waxaan suugaynaa shahaadooyinka rasmiga ah inaan tartan u galaano hello marka 6 bilood ay dhimatay doorashadu in xisbiyada isreeb la sameeyo xisbiyadii marka soo baxaa ay guuleystana ay marka doorashada ka qayb qaataan marka anagu diyaar garowga kale aan ku sii jirnay oo aan ku jirnaa كلي مدحوينون شرعي أو أنسحية وصحيحنا وحيود لجان تاعي إن دولته يدياسة تانو جنا مدحوينون حيري حزب أنا صوبنا وكنا واقعنا يلفتو ينشيد كسر شراء ونسوينا هذا حزب كنا واقعنا تكلي تدخل شك بدل ما كبر حيتنا هدي على يرادو لكنه وحنا ميزاناي وحلي هذا دورش ما نحكي كرت إنه سيصير تكل كر تيرم بالله دورته مدحلات كاس مركل لجاله هدي دورش شكو قبتها أهل وسهلا الحمد لله هدي سندور شكو قبلنا ومد الصومالية دي حزبية دي شعب كيزياتينتو والله تشريع تلقى على السجون إن شاء الله. واتها كل واجبنا وهي دورشين كدلك كدعاء مركا هالدورشات اللي فيليو إن دلك كقبصونته ما لقيها بقى إني صومرته مرحلة ذيك اللي دونا دورشين كدلك كدعاء وغلاف هذه هريان مسا حزبية دو يصدق على السياسية وحاجر أرماسي سوى سوى موتشتين. ما صنتها ولكن إن رنتي محل أمزنا هذه قرشان هذا السعودية الإلكشنات أن صومرنا يترم هذا دورشان هذا دعيس هاي وحن كعررنا نقدر على من وحوا إن دورشين كذلك صومر إن يصنقون دورشان هذا دعيس هاي حياة بدنا تناسل على سمايني أو إن تناسل سمايني أو أنا كسمايني ننام كان دورشان هذا الجمهور زيه أنو قاودي كرنا بيننا حتى كسر جيسنا معارضة لكن ننام كي هو يدلك صومر بوحنا كعررنا إن عندي بلوغ العبر والنظام كدون دورشة أي دلك وقلا ولو خلافية بدن استديدي فدرال دولة فدرال أي جيران لكن خلافية داسي متقانا دحية على استيد دولة قبلة دولة فدرال ويكون خصوصي إنه حلستان أنت اللي لكش كلا قارن حاجة لي هدي مر دورشة اللي قارو دول لوس ويا معارض يا محافظ مولوس ويا لكش نظام كله قلنا مركب حنا ميزان هاي أو أنا مر والبان كذا قال من الحواي نظام كي خرق إلى صامري doorashada lagu soo galay inaysan noqon una soo dhawaan doorashada hadda dhacaysa wata sharciga waxa ku qoran oo doorashooyinka in xildhibaanada ay dooranayaan shacab markii madaxweynaha kala doorasho galeen ay dooranayaan xildhibaanada labada aqal arinkaasi ka waran muxuu fududeynaya arintaasi runtii waxay ila tahay walaalkay waa arin fiican labada aqal baarlamaanka in la yiri shacabka soo doorteen haddana sharci wuxuu sii sheegayaa in kuraastaas ay jifo leedahay jifidaas laakiin ay shacabka mandaqadaas ku nool ay kuraasta wada codeynayaan labada aqal marka sida lagu soo doortana madaxweynaha labada aqal ay dooran doonaan marka waxaan aaminsanahay
madaxweynaha haddii labada aqal ee baarlamaanka ay doortaan doorashadan hadda nagu soo fooda leh doorasho shacabka Soomaaliya ay u dhan yihiin qof iyo cod ah xilligeeda marka la gaaro in dastuurka marka wax laga bedelo oo marka madaxweynuhu ay shacabku soo doorato laakiin wada marxaladna hadda la taagan yahay waqti xaadirkan waxa la isla qiri la yahay xildhibaanada dooranaya marka ay madaxweynaha haddana culeyskeedii la soo saaro kursiga dalka ugu sareeya way adag tahay marka waa lagu wadayaa in nidaamkan labada baarlamaanteriga oo dastuurkeenu qorayo in madaxweynaha lagu soo doorto laakiin wixii ka dambeeya dawladaha ka dambeeya iyo baarlamaanka ka dambeyn doona ayaa sixi doona nidaamka rasmiga ee madaxweynaha lagu soo dooran doona insha Allah laakiin hadda hadii la yiraahdo madaxweynaha shacabka soo doorto oo baarlamaanku soo doorto qodobo badan oo dastuurka ku qoran baa waxay baahan tahay bedel dastuurkina wali waa qabiyo marka wax badan baa isdiidaya marka waa lagu khasban yahay in labada aqal nidaamka baarlamaanka dastuur ku qoran in madaxweynaha lagu soo doorto kadibna markaas wixii ka dambeeya dawladaha ka dambeeya laga shaqeeyo sidii madaxweynaha shacab soo doortay loo heli lahaa hadii la yiraahdo beesha caalamka waray soo saareen waxaan ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyo qaabka ay ku dhici karaan marka xisbi ahaan sidee u aragtaan qoraalka beesha caalamka runtii waxay cadeynaysaa maadaama waddanku doorasho galay in dawladaha danaha gaarka kale Soomaaliya ama dawladda jecel ha noqdeen Soomaaliya lugaha ku istaagto ama ha noqdeen dawladda si interest kale ama siyaasada kale Soomaaliya dawladda dalkeena kale ha noqdeen runtii baaqay soo direen anagu ka xisbi ahaan ama higsi ahaan waan soo dhaweynaynaa runtii waana ku taageerana waana ku boorinayna ama ku mataqana riixayna inay sii xoojiyaan go'aanka ay soo saareen maxaa yeelay sanad bilaa dhiman doorashadii ilaa hadda dawladii xisbi ma samaysan khilaafiye badan baa jira ayay sabab u tahay maanta warqadda ay soo saareen in dawladdu mas'uuliyadeeda hortaala inay fuliso khilaafka isteediyada ka dhaxeeya ay xaliso mataqana maxay ahaaytay nabadna ay shacabka iyo siyaasiyiinta isteediyada ay nabad ugu soo dabaasho si markaas anagoo iswada aaminsan isku kalsoon doorasho xor iyo xalaal ah ee wadanka uga dhici lahayd heshiis ku wadanahay in la helo taas ay baaqaas maanta international community ay hordhac u ahayd iyadana waan soo dhaweynaa insha Allah waxaan rajaynaynaa inay taaka wala socdaan nidaamkan wuxuu wadnaa insha Allah meesha wax marayaan hadii la yiraahdo qata hadda xisbiyada dalka ka jira inta badan waxay haystaan shahaado ku meel gaar marka in shahaado rasmi la siiyo maxaa hortaagan horta walaal waa mahadsan tahay horta dhibkan haysta ugu weyn in haysta waxa waaye guddiga doorashooyinka ayaa waxay yiraahdeen shuruudo 9 gobol xafiisyo inaad ka soo furtaan 10,000 qof soo diiwaan gelisaan inta hadaad keentaan ayaa shahaadada rasmiga ee shahaadada stage labaad aad u gudbi kartaan oo dalban kartaan runtii xafiisyo waxaan ka furanay goboladii stadiyadii shuruuduna waxay 9 gobol ugu yaraan in xafiisyo ka soo furna xafiisyadan gobolada ka soo furan qaar kamid ah ay dawlad goboleedyada albaabada la isugu laabay wala soo xiray macal guddiga doorashooyinka ka furna xafiisyadooda baa la soo xiray oo mataqaana dalka istidiyada laga soo saaray oo leeyahay waa xirta maamul goboleedyada xiray sida Jubbaland iyo Puntland oo kale anaga xafiisyadan ku lahayn laftigeena sidaas oo kale loo hor istaagay marka dhibka jira meesha wax iska qabsan lahayn waxa waaye waa khilaafkan federaalka iyo state-ka dhex yaala marka waa siyaasad xumo dawladda federaalka iyo state-yada dhex yaala waxa anaga nolol sababeynaya hadana ka xisbiyaan shuruud waa soo buuxinaa gobolada xafiisyo waa ka furanay dadkii lambarkiina lagu talagalay shuruudaha ka badan baan diiwaan gelinay waxa diyaar u nahay hadda inaan shahaadada rasmigeeda doorashada ku gelinay inaan dalbano haddana dhibka jira waxa waaye meel ba xafiiska guddiga doorashooyinka laga soo xiray sidee xafiis uga furi karnaa anaga nagu adag marka waxaan aan guddiga doorashooyinka iyo dawladda federaalka aan leeyahay maadaama iyagu heer federaal yihiin heer qaran yihiin inay intay tanaasul sameeyaan in sida ugu fudud wax lagu xalin kareen lagu xaliyo marka anagu kale waa u diyaarsanahay inaan shahaadada stage-ka labaad u gudubno si dhamaystiran oo mataqaana aan maxay ahayd xisbiga shacabka Soomaaliyeed iyo xisbiyada kale la mid ah inaan isu diiwaan gelino stage-ka labaad ka xisbi ahaan nidaam walba xisbiga shacabka Soomaaliyeed waan dhisnay waan diyaarsanahay hadii guddiyo noqoto hadii xafiisyada gobolada degmooyinka noqoto dhammaan xafiisyadeena gobolada ku yaala si hoose u shaqeeyaan oo mataqaana aan ahayn xafiis boor ku qorayo boor ku soo wareeyo saraxayn maadaama laga diiday marka runtii taasna waxaan ku eedeynaa ama ku dhaliilana guddiga doorashooyinka mataqaana dawladda federaalka inay mas'uuliyadda leeyihiin marka waxaan ka codsanaynaa si shuruudii aan u buuxino si shuruudii loo fuliyo si shuruudii ay u kontroolaan oo ay kormeel ugu sameeyaan waa in la helaa isu soo dhawaansho ama mataqaana xal isu soo dhaweynaya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada si marka anagana noogu fududaato inaan ka qayb galno dawladda laftigeedana xisbigeedu samaysato si xisbiyada kale u aaminaan in dalka doorasho xisbiya ay galayaan waata dadka Soomaaliyeed inta badan waxay taxgeliyaan xisbiyada ama shakhsiyaadka mucaaradka ah
marka doorashada waa la geli rabaa marka xisbigiina ma mucaarada ma soo maxaafid runtii horta walaalkay waa mahadsan tahay horta anagu mucaarada nahay waxa muxaafida ninka xukunka markaa joogay cidda taageersan shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ka soo joogaana mucaaradnimada hadda waxa loo fahmay mucaarad wax duminay anagu mucaarad wax duminay manina mucaarad wax dhisayaan nahay annaga aragtideena iyo fikirkeena waxa naga go'an waxa waaye nidaamkan iftiinka hadda iftiimaya ee dawladnimo inaan taageerno meelaha barbanaan ee goldolodan anagu aan buuxino oo aan ma taqaana anagu la asturno la dhaqaajino anaga naga go'an laakiin waxaan nahay xisbi mucaarad oo diyaar u ah hamine uu kaga jiro in kuraasta waddanka tartan u gallo waxna aan ka bedelo ma taqaana xalka dalku marayo marka mucaaradka laba kala ah mucaarad wax duminay mucaarad wax dhisay anagu mucaarad wax dhisayaan nahay anagu iftiinkaas hadda iftiimaya dawladnimo dhibka laga soo maray iyo inta ciidan ay u soo shahiiday iyo inta siyaasi Soomaaliyeed u soo dhintay in anagu dimino hadda aan ma taqaana aan burburkeeda ka shaqeyno anagu diyaar u manin anaga hadafkeena waxa weeye dawladnimada maanta jirta inaan taageerno inaan garab siino inaan sii xoojino waxa yeelay biri xisbiga imaan doona in la shaqeeyo raba siyaasiyiintu la shaqeeyaan mucaaradkuna ay la shaqeeyaan raba haddaan maanta systemkii la rabin birina la shaqeeyo haddaan maanta sii burburino sidee ma taqaana aan anagana birino la shaqeyn doona waa adkaan doonta marka shacabku waxaan leeyahay yaan dhig loo dhigin mucaarad wax duminaya oo qaran dumisa laakiin halala shaqeeyo hala taageero dawladnimadana halala shaqeeyo hala taageero xisbiyadan sida ma taqaana wanaagsan u fikiraya ama sida wanaagsan rabeen wax bedelana taageeridooda hasiiyay ma rajeynaa insha Allah waa tahay waxaad kamid tihiin xisbigiina shacabka dhowr xisbi isku tagay oo hiigsi lama baxay marka maxay tahay ujeedka magac hiigsi aad samaysteen oo u midoodeen horta anigu waxaan ahay gudoomiyaha xisbiga shacabka marka laga yimaado xogayaha guud ee isbaahisiga hiigsi isbaahisiga hiigsi waxaan ka koobanahay 9 xisbi oo siyaasadeed oo ka jira dalka 9 xisbi waxaana mideeyay oo suuqaya keenay waa aragti siyaasadeed iyo halka dalka aan doonayno inaan geeyno mustaqbalka dhow iyo meesha maanta uu taagaya waddanku baan isku aragti ka noqonay marka 9 xisbi waxaan ku heshiinay nagana go'an waxa waaye in dawladnimada inta qabyadana aan dhamaystirno annagoo si wada jiro oo gacmeena isaysanana aan dalka sida wax uga bedelno wax uga qaban lahayn wax uga bedelo hiigsi waa isbaahis 9 xisbi ka kooban waana 9 xisbi oo aragti midaysay aragti Soomaalinimo aragti ma taqaana dal jacayl aragti ma taqaana si waddankeena mustaqbalka dhow meeshan gaarsiin lahayn aan uga wada fakari lahayn laga yaabo in mustaqbalka dhow inay noqdaan hal xisbi oo midaysan oo ka qayb qaata electionka hadii aan leeyahay marka hiigsi waa isbaahisi madal kulmisay xisbiyadaas aragtida ka wada isoo aragtida ka noqday meesha dalka aan u wadno mustaqbalka dhow iyo meesha maanta dalku uu taagan yahay ugu dambeyntii marka waa wareysiga marka maxaa dadka ku daawanaya maxaa ugu soo gabagabeeyay waxaan uga faa'iideysanayaa wareysigan bulshada daawanaysa shacabka Soomaaliyeed aan runtii la wadaagaya waxa waaye wadankan 30 sano muddo ku dhow waa dalkan burbur soo gala burburkaas dad badan baa ku naafoobay dad badan baa ku dhintay dad badan baa ku hanti beelay dad badan baa ilaa hadda ka soo kaban laha dhibco dalka soo maray shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta waxaan haysanaa iftiinkii ugu dhawaa aan wax ku bedeli kar lahayn caalamka iyo ma taqaana adduunweynahana aan wax kula qaybsan lahayn maanta waxaan leenahay gobolladeena iyo dalkeena gacanta waa ku haysanaa alxamdulillah waxa shacabka Soomaaliyeed maanta aan leeyahay maanta waxa lagu baryayaa oo la leeyahay war xisbiyada lagu beero war doorasho qof iyo cod dhacaysa taasna shacabka laga rabaa inay dawladda ka kacaan toosaan inay xisbiyada ka mid noqdaan inay xisbiyada taageeraan in fikirkooda siyaasiga ay cabiraan waxa yeelay waxa maanta laga doodayo oo anagu maanta anagu xisbiga hogaaminayna aan ka doodino ama ma taqaana dawladda maanta jirtay isteediyada bay ka doodeen waxa waaye waa masiirkoodii iyo mustaqbalkoodii waa marka inta mustaqbalkooda masiirkooda si khaldan loo jiheyn lahaa ama si khaldan ma taqaana maxay ahayd meel khaldan looga tuuri lahaa waxa loo baahan shacabku inay toosaan inay indhaha kala furaan inay dhagahooda furaan inay ka qayb qaataan isbedelka waddanka ka socda dawladaha Carabeed Afrika waxa jiray ka kaceen kacdoono ma taqaana shacbiya oo shacabku ay kaceen oo madax badan 40 sano 30 sano wadamada hogaaminaysa ay shacabka xukunka ay ka rideen oo ugu dambeysay hadda Suudaan oo 30 sano Cumar al-Bashir madaxweynaha ka shacabkii kacay isu yimi 5 bilood jidadka taagnaa ayaa dawladda dhameeyay rideen ayaa waxa la doortay dawlad shacab ka timi iyo mid military ka timi haddana waxa loo wada dalkeen sidii hore dimuqraadiyadda Suudaan inay dib ugu laabato oo nidaamka dictatoriga ay ka gudubto marka shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxa kaliya anagu wax ku noqon karnaa oo wax ku bedeli karnaa oo aan ummadda ku sixi karnaa waa inaad kacdaan hurdada ka toostaan
meeshaan wax marinayna iyo meesha wax marayaan baa la socotaan si markaas bulshada Soomaaliyeed ay uga faa'iideysato in mataqaanaa ay ra'yigooda iyo fikirkooda masiirkooda ay cabiraan marka waxaa leeyahay xisbiyada ku biira xisbiyada mataqaanaa soo gala ka xaaladda dalku meeshu maraya ka warhaya gacmahan isqabasano aan meel wada jeysano si dalkeenu uu noqon lahaa karaamadii sharafta lahaan jirnaa dib ugu soo ceshan lahayn adduunyanaha caalamka aad buu mahadsan yahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga shacabka Soomaaliyeed mudane Cabdiraxmaan Suleymaan Jaamac oo wareysi gaar ah aan la yeelinayn mudane gudoomiyaha mahadsan